hoos tagtaa wax aan ku qabnaa lama arko wax aan ku qabno 10 sano baa waxna la ku hayo hoobiya hoos tagtaan gudoomiye leedihiin magaala ka tirsantihiin koob shahara nooma keeno nacfay leeyihiin ma aragno cod ay leeyihiin ma aragno qodobkaas waxaan rabnaa dawladdu awaana ilooda ama meelaha la saar saak awal meel baan saarnay ama faraha nala ka qaado meelaha nala saar hoobiye ma hoostagno gaalka marka tagno alle hoobiye taga hoobiye baan tagno alle gaalka taga warweedkaas ku jirna meel hanala daji si alla socotiin magaaladan xilligii dawladdu dhacday ilaa intii dawladdu jirtayba wax laga qabtay oo danguudi ma jirto dawladdii siyaad bar waxay ka qodeen ceel riig ah ceelkaasna biyihiisu wax bini aadan cabi kara ma marka runta ka hadalno ma oran karno dawladdu way u hagar baxday waxa isleenahay waa iska qodeen waxayna ka soo saareen ceel biyihiisu ay la mid yihiin badda oo kale oo wax cabi kara la sidaas oo ay tahay waxyaabo badan oo ka caawin jiray dadka deegaanka ah waqti badan oo lagu soo mooday asagina hadda uu fadhiyaa oo wuxuu u baahan yahay dayactir oo dayactir u baahan yahay waxaan rabnaa hadii la qadaro wax alla wixii karaankiina maadaama aad ka socotaan heer wasiir iyo heer gobol intaba in codkiina intuu gaaro aad gaarsiisaan oo wax ka qabataan insha Allah sidoo kale caafimaadka MCH baa ka furnaa oo iska wuxuu qabso iyo dadka jaaliyada dibadda oo deegaankana ay dhiseen asagina de markii guriga la dhisay ma sii wadi karaan shaqaalihii mushaarkiisa iyo wixiisi dadku kama bixi karo waxa loo waayay fan ama hay'ad fan ku bixisa ayadana waa la waayay waana mid hadda curyaamisay inuu MCH uu shaqeeyo markaas waa dareemi kartaan khatarta ay leedahay magaalo dhan oo intaas oo mujtamaca ay ku nooshahay oo qof xanuunsada aan xabad keenin meel looga dhiga loogu geeyo ay salahayn khatarteeda qof kasto bini aadam uu soo sawirmaysa ayadana waxaan leenahay walaalayaalow dadaal insha Allah hadii la qadaro arinta waa arin emergency waa in ay noqotaa marka laabataanba jawaab degdeg ah waa in la helo hadii la qadaro sidoo kale waxbarashada waxa ka jira dugsiyo hoose dhexe runtii waxaan oran karnaa waa halka shumac oo noo baxaya waa waxbarashada weyn ayadana waxa ka dadaalay jaaliyada deegaanka reer Xungeedeed yaa ka dhisay hada waana tagi doontaan inaad ku soo arki doontaan fasalada iyo ardada dhigata iyo waa tagi doontaan warbixintana maamulka macallimiinta ka warbixin ka dhigi doonta laagsi guud hadaan uga hadalna xogta intaan ka ogahay intaan warkay u gelin waxaan rabaa inaan gudoomiyaha iyo gudiga saddex su'aal weydiisto haday iyo ogolaadaan waxaan rabaa kow magaalada saldhig lahayd in la sheego xilliga dawladda labo inay goob caafimaad lahayd saddex inay goob waxbarasho lahayd أنا أور مرة يوم قاب عافمات وحلي سياد برمجي واقست قاب وحبر الشو حلي سياد برمجي واقست أنت كان من سلاح سلق واحد سلقاس waxaan rabnaa in la baneeyo hadii dadku jiro oo maanta gacanta dawladda u soo galo si aan wax uga qabano hadii meel ciriiri ku yaalo waa bedeleynaa hadduu meel fiican ku yaalo uu leeyahay saligaas waxaan in gacanta maanta lagu soo wareejiyo gudoomiyaha degmada heer gobol iyo heer wasiir gacanta soo galo baana taas inta soo baxaya runtii horta waxaan ka mahadcelinayaa dhibaatada aad sheegteen biyo la'aanta ah oo wax jira aan ognahay nidaamka waxa weeye saddex shay hadduu waayo de noloshiisu waxay noqonaysaa wax jir waa biyaha oo wax walba ku soconaya oo jacalnaa meel ma ay kulli shay hayun afala yun markii biyo la helo haddana cunto la helo nabad la helo caafimaad la helo adduunta suugi marka waxa taagan ba caafimaadkiina ma hayno biyihiina ma hayno runtii waxaan rabnaa geed gaamba intii aan u fuuli karno ceelkaas inaan warbixintiisa qaadno wasiiradu ina qaadana heer gobol nooca inaan labada hay'adood ku shaqeeyo oo gaalgacyada ku nool oo ka shaqeeya inaan gaarsiiyo sida ugu dhaqsaha badan socodka aan noqdo kadibna gudoomiyaha aan soo waco oo wax isla meel dhigno insha Allah taas dadaalkeedan geliya waxaa kaloo yaaray xoolaha tiim xoolaha jira oo hadda socda gobolka ka socda wuxuu ilaa iyo socda dhinacaas
sanadkii hore intaan gudoomiyahayna markii aan waan weydiiyey waxaan maxaa dhinacan loo aad waayey sanadkii hore dhinacan la aaday baa le oo waa qiiminayna baash oo sanadkii hore budbudiyo meelahan usoo marnay sanadkan waxaadnaa le dhinacaas iyo ilaa gelisoo lisoonkaasaa marnay laakiin hadda waxaa la tababaraa tiam ICRC ay tababarto aan rajeynayno inay ka bacdi ay bilaabi doonaan ayaa message-kaas waa idinka qaadayaa. socdaalka horta wuxuu ahaa wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare galmudug inay samayso baraarujin sanad dugsiyeedka dhammaanaya iyo sanadka dhammaanayaba inay baraarujin samayso kuna baraarujiso deegaanadan aan isu dhoweyn runtii dhibaatada badan oo waxbarasho iyo maarata caafimaadna ka muuqato iyo biyaba in marka aan fariin dhabana qaadno si aysan deegaanadani u weynin oo aysan uga harin sanadada soo socda haddii alla yiraahdo miisaaniyadda waxbarasho oo loogu talagalay galmudug haddii ay tahay mid hay-adaha relativeka aan la leenahay xiriirka ka imaanaysa iyo mid galmudug ay qoondaysayba inaysan ka qadin ayuu ahaa socdaalkeennu oo aan isu soo raacnay anigii brofesorku waxaan noo cusleeyey run ahaantii khayr allaha siiyey axmed shire oo marna wasiirkeena warfaafinta ah marna ah environmentiga deegaanka ah iyo guddoomiyaha gobolka iyo guddoomiyaasha degmooyinka tuulooyinka aan soo marnay iyo salaadooyinta oo ayagana nala socday ayaa micno u sii yeelay aad iyo aad aan uga mahad celinaynaa qoys beeraley aan ka soo jeedo geedka marka aad rabto inaad goyso maxaa la suubiyaa geed jirid weyn aad rabtaa inaad goysid maxaa samaynaysaa waa inaad isu banaysaa laamaha yaryarkaa oo ku dalfinaya oo jiridda inaad horta banayso waaye horta la yabaaliyo waaye jiridda markaad isqabataan inaad gacanta wacan dhuufaysato waaye markaas tiraada iskaa nafsi hadda bahasha korha ka bilaabinine ilma adeeryaalow daacaday naga tahay waa idinla talinaynaa axmed shirena waa joogaa ma u malaynayo relativeka uu la leeyahay wasiir axmed shire wasiirada iyo madaxweynaha nin accesskaas haysta oo galmudug wasiirka ah inuu jiro ma u malaynayo midaan warfaafintu aad muhiim u tahay xalay ilaa saakay 9 idaacadood oo war magaalada weyn caanka cimrigeedu aadka u sareeyo ee dhinac walba xoolaha hodanka ku ah ee duqeyda iyo diinku ka soo fadhaabo ee xungada ayay ku sugayeen waftiga ballaaran ee aan hogaaminayo wuxuuna kala kulmay soo dhaweyn iyo wax la yaab leh waxaana halkaas ay tahay xuduntii diinta idaacad walba ku jirta inta la ixsaaray intaas